madaxweyne xasan sheekh wuxuuna kala dooransiinayaa laba shay wuxuuna kala dooransiinayaa inuu meesha iska joogo sharci darro uu ku joogo iyo in doorasho uu natiijadeeda asaga ogyahay uu qabsado dee labadana lama yeeli karo inuu joogana lama yeeli karo in doorasho asaga uu leeyahay keligii uu qabsadana lama yeeli karo annagu marka waxaan rabnaa doorasho asaga raalli ka yahay annaguna raalli ka nahay dhammaan bulshada Soomaaliyeed idilna ay raalli ka yihiin ma doonayno doorashadii 2022 ee boob ku dhisnayd ee qandiga uu ku soo ridanayay madaxweyne dawlad goboleed xildhibaanada ma doonayno sidaas la mid ahna ma doonayno doorasho madaxweyne xasan sheekh marhabno labadaasba wax u dhaxeeyo oo laga tashtay ayaan diyaar u nahay markii xilligeeda la gaarina waxaan diyaar u nahay modelka doorasho oo annagu aan u aragnay inay sax tahay inaan soo bandhigno ayaan diyaar u nahay aad iyo aad u mahadsan dhibka iyo barakicinta baahsan ee shacabka Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed dawladda ay ku hayso dawladda dadkeeda barakicinaysa dawladda dadkeeda u turtay la arki jiray ayaan kala hadalnay waxaan kala hadalnay afduubka iyo dadka shacabka ee xaqiiqada iyo runta iyo dhibaatada jirta sheegay sida loo xirxirayo oo hadda ugu muhiimsan tahay gabadhii Saadiya Macalin ay ugu muhiimsan tahay wad ogtihiin dhibaatada haystaa maaha ma jirto waxa loo haystaa maxaa runta u sheegtay maxaa xaqiiqada u sheegtay ayaa loo haystaa waxaan mareynayaa keligii talisnimo iyo caburin wadankani uu soo maray meesha uu geeyna waa ognahay burbur iyo baaba ayuu geeyay keligii talisnimo iyo baaba kalena dalkani inuu u laabto annagana ma doonayno maslaxad iyo dan uma aha aad iyo aad u mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh